ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي كان أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalyaal waa salaamantiin meel kastoo aad joogtaan, kusoo dhawaada barnaamijkii ahaa axsan alxadiid, sheekatan ugu wanaagsan. maxaa ka qiimo badan in qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu tafakuro? maxaa ka qiimo badan in qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala laga sheekayo? maxaa ka qiimo badan in qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala la akhriyo? maxaa ka qiimo badan in qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu tadabburo? maxaa ka qiimo badan in qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala la weynayo? nacam, ikhwat alacizaa, waxaan ka soo sheekaynaynay qur'aanka ka jeesashadiisa khasaaraday leedahay. waxaan soo sheegnay qofkii qur'aanka ka jeesta maalinta qiyaame inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo kulminay asigoo hondhoolo ah, uu keeni doono qiyaamaha. waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa wuri ilaahi subxaanahu wa tacaala. qaala rabbi lima xshartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsaa. ayuu yiri rabbi subxaanahu wa tacaala. mowduucii ayaan dhimaystiri doonaa. ikhwat alacizaa, ilaahay wuxuu leeyahay waman adlamu miman dukira biaayaati rabbi. yaa ka dulmi badan qof ilaahay aayaadkiisa la xusay oo la xusuusiyey oo lagu dul akhriyey, huma acrada canha, markaas kadib uu ka jeestay oo dhegaha intuu farta gashtay ama intuu sanka taagay uu jeestay ilaahay aayaadkiis markii loo sheegay. innaa min almujrimiina muntaqimuun. jawaabtii waa tas, gabagabadii waa tas. mujrimiinta waa ka argoosanaynaa wuri ilaahay subxaanahu wa tacaala. waa goondigi rabbi subxaanahu wa tacaala. nacam, ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati taaha aayad ka mid ah wuxuu ku leeyahay man acrada canhu, ninkii ka jeesta qur'aanka, fa inahu yaxmilu yowma alqiyaamati wisra. dembi ayuu dusha saartay wuri ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaasi maalinta qiyaama. wallahi qofkii qur'aanka ka jeesto, qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa ka jeesto, qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala kutubkiisa ka jeesto, tanziilka ahaa oo mawcidada ahaa oo shifaaga ahaa oo hanuunka ahaa oo dikriga ahaa, qofkii ka jeesto maalinta qiyaama, wallahi dusha wuxuu saartay dembi weyn ayuu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala. ikhwat alacizaa, waxaad ogtihiin fii suurati almu'minuun ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamayay dadka miisaankooda culsaaday inay liibaaneen. faman thaqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun. ama waman khafat mawaasiinuh, qofkii miisaankiisa khafiif naqdo oo wax la saaro la waayo oo dembigiisa bato oo waxba uusan samaysanin oo wanaag uusan samaysanin, aayaadkii ilaahay, qur'aankii ilaahay, dikrigii ilaahay ka jeesto, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman khafat mawaasiinuh fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun. waa kuwii khasaaray oo naftooda ay ku khasaareen oo jahannamana ay ku waarayaan. waayo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwaas miisaankooda fudeedka naqday. waa kuwii khasaaray, naftooda ku khasaaray, xoolahooda ku khasaareen oo waxay adduunka ay samayn jireen ay ku khasaareen. kuwaas waa kuwii jahannamo ay ku waari doonaan waa ilaahay subxaanahu wa tacaala. ikhwat alacizaa, su-aasha ugu horeysa dadkaas la weydiin doono ma taqaana? akhi lkariim, ukhti lkariima, ma taqaana su-aasha ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiin doono dadkaas? wayaa ahla alqur'aan, ma taqaanaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaas u weydiin doona? wayaa ahla alghafla, dadka hilmaanka ku sugan oo dadka hurdaaya, ma taqaanaan su-aasha dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiin doono?
talfaxu wujuuhahum annaar wahum fiiha kaalixuun oo naarta gubi doonta oo sidii hooyada oo kale dhabta cunugeeda ku qabsanaysa naarta dhabta u qabsan doonta. dadkaas ma taqaanaan su-aasha ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiin doona. nacam, dhegaysta marka, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alam takun aayaatii tutla calaykum fakuntum biha tukadibuun. alam takun aayaatii, soo ma ahayn aayaadkayga tutla kuu la akhriyo calaykum dushiina lagu dul akhriyo soo ma ahayn ayuu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala. fakuntum biha tukadibuun, idinkana aad beenin jirteen oo aad ka jeesan jirteen, aad ku jeesi jirteen aayaadka rabbi subxaanahu wa tacaala. alam takun aayaatii tutla calaykum fakuntum biha tukadibuun, waad beenin jirteen. qaaluu rabbanaa galabat calayna shiqwatuna wa kunnaa qowman daaliin. ilaahayow waxaa naga qaalib noqday, ayaan daridayna ayaa naga qaalib noqotay, waan xumaanay, dad xun ayaan maqanay. rabbanaa galabat calayna shiqwatuna wa kunnaa qowman daaliin, waxaan naqnay dad baadiyeysan ayay leeyihiin. rabbanaa akhrijnaa minha fain cudnaa fainaa daalimuun. ilaahayow naarta naga saar maanta, aayaadkaada waan beeninay, waa ku camal fali weynay, waa ku dhaqmi weynay, waa qaadan weynay aayaadkaaga. rabbiyow maanta cadaabtaada naga saar, rabbiyow cadaabtaada naga bixi ay leeyihiin. ilaahay wuxuu leeyahay ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun, isku socma, iskugu taga, isku urura meel taga ayuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala naarta dhexdeedi. fiiha walaa tukallimuun, ha ila hadlina ayuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala, ha ila hadlina. alam ya'tikum nadiirun mubiin, nin digaay soo idinma imaanin ayuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala. mid digaay oo wax idin sheegay soo idinma imaanin. alam ya'tikum nadiirun mubiin qaaluu balaa qad jaa'anaa nadiir. ilaahay waa noo yimid wax digaay, kutubkaagaa noo yimid, dad ducaada noo yimid oo diinta noo sheegayaa noo yimid. qaaluu balaa qad jaa'anaa laakin fakadabnaa, waan beeninay. waqulnaa maa nazala allah, waxaan dhahnay ilaahay waxba ma soo dejinine, waxaad ku gondinaysaan, cadaabtaad sheegaysaan, naartaad sheegaysaan, naga dhaafa ayaan ku dhahnay, iyo qur'aankan aad nagu daba wadaan. fakadabnaa waqulnaa maa nazala allahu min shay in antum ila fi dalaalin kabiir. waqaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fi asxaabi saciir. saasay leeyihiin, waxba ma tarayso weeyaan. qofkii ilaahay dikrigiisa ka jeesto oo qur'aankiisa ka jeesto oo wacdiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka jeesto, ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaab buu u diyaariyey, cadaab buu u diyaariyey rabbi subxaanahu wa tacaala. wax ugu wanaagsan oo la barto oo lagu camal falo oo waqti la geliyo oo lagu dadaalo oo juhdi la geliyo, waxa uu khayr badan axsan alxadiid, ilaahay kutubkiisa sheekada ugu wanaagsan oo ugu qurux badan oo ugu qiimo badan oo ugu karaamo badan. axsan alxadiidi kitaaba, ilaahay kutubkiisa weeyaan, ilaahay kutubkiisa weeyaan. fiihi nabau maa qablakum wa khabaru maa bacdakum, waxaa ku sugan kutubka ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii naga horeeyey khabarkoodi, wixii naga dambeeyey khabarkoodi ayaa ku sugan. qur'aankan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo sheegay, annagaa isku xukmina. ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegay. ilaahay arka siduu ummadiisa u jecel yahay rabbi subxaanahu wa tacaala. kutub munazal ayuu usoo dejiyey oo ku camal falayaan. ilaahu naga dhig kuwa kutubkaada ku camal falay oo ku dhaqmay. rabbi subxaanahu wa tacaala tawfiiqdiis allah na waafajiyo. ikhwata alacizaa, ilaahay subxaanahu wa taala naga dhigo ahlulqur'aan, ilaahay ahlkiisa allah naga dhigo, allah nagu intifaaco, allah naga dhigo aladiina yastamicuuna alqowl fayattabicuuna axsana. meeshan ayaan kusoo gabagabaynaynaa insha allah. barnaamijkayna ahaa axsan alxadiid, halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waxaan idinkaga tagaa, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.